السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal haddii la ka dhiga casharkan waxaan ku eegi doonaa sida loo samaysto bootable USB uu ku duuban yahay marka operating systemka loo yaqaano ESXi 6.7 sababtan u samaysanayna waxa weeyaan waxaan haystaa dhowr server oo aan u baahanayna markaas operating systemka ku shubo laba server oo Dell ah marka haddaad doonaysid adag laftarkaaga aad computer haystid ama matalan laptop oo kale aad leedahay ku shubo oo u isticmaali kartaa bootable USB ga ESXi oo kaliya sidan looma sameeyo xitaa Windows 10 bootable USB baad samaysan kartaa ama Windows 7 bootable USB ama xitaa Linux marka softwareka iyo operating systemka ba halka laga soo degay insha Allah link idin gelin doonaa marka bal hadaba aynu eegna insha Allah softwareka waxa la yiraahdaa Rufus waa kan desktop-ka saaran softwareka ayaan horta furaya yes ban leeyahay user access control-ka marka wuxuu weydiinayaa USB mar horaan samaystay laakiin dib baan u sameynaa insha Allah si aad u aragtaan marka wuxuu qoranayaa USB device-ka ama USB baha qalabka doonaysid waa maxay USB ga isticmaalaysid waa maxay uu leeyahay dadna waxaan leeyahay ta 8 gig weeyaan aniga USB ga waa 8 gig runtii 8 gig wax ka yar idin kulama taliyaan inaad isticmaashaan waayo USB ga waanu baaxad fiican yeesho haddaba image-kii ayuu markay weydiinayaa disk oo ISO image file-ku waa inuu ISO noqdo waana kan desktop-ka saaran halkan aad arkaysaan select baan leeyahay ka bacdina waa kan VMware haddaan doonayo serverkaygaasaan dooran karaa Windows ah oo ah server 2019 saad arkaysaan laakiin VMware baan ku shubanaya anigu serveradayda ESXi gaasaan ku shubanaya marka kaas ayaan taabanaya open baan leeyahay ka bacdina wuxuu siiyay waxoogaa uu ikhtiyaaraad yar oo kale oo sidoo isaga deynayo partition-ka wuxuu ka dhigay MBR master boot record BIOS ama UEFI uu ka dhigi doono insha Allah waxa laga yaabaa waxaan jeclahay inuu BIOS ka dhigi doono laakiin weyn eegi doono inta marka aan sideeda u daayo magac u bixi buu oranaya marka waxaan u bixin karaa waxaan doono laakiin sidaas isaga deynaya ESXi gaas isaga deynaya start ban marka leh ma hubtaa waa in yaro waxoogaa hubniina waa wax walba oo masaxaya weeyaan okay baan leeyahay yes and all data on the device will be deleted yes baan leeyahay waxaba masax waa USB gan waxaan ugu talagalay in software kan ku shubto marka waa ka bilaabay clearing buu leeyahay idna uu sameeynaya insha Allah waa yahay uu dhameeyay haddaba close baan taabanaya intaas weeyaan insha Allah sida bootable USB ga loo samaystaa ama Windows 10 operating system-kaaga ha noqdo aniga ka VMware ka desktop-ka yaala ama ha noqdo maxay ahayday mid Linux ah ama VMware ka ha noqdo ku doonaba ha noqdee software-kan yara Rufus la yiraahdo waxay ku fiican tahay waxaad u isticmaali kartaa si aad u samaystid USB bootable ah markaad operating system-ka kugu duubto imka USB ga intaan kala baxo computer-ka ayuun baan waxaan gelinayaa hadii ay ka dhiga server-kayga Dell-ka ah hadii ay ka dhigo cashar dambe aan ku arki doono markaan geliyo ka bacdina waa ku duubaya insha Allah taala software-ka ama operating system-ka ay ku jira USB ga ayaan kaga duubayaa USB ga waxaan ku shubayaa server-ka marka runtii waa hawl iska yara fudud bay ahayd wuxuu la dhaqsaday runtii file-kan ESXi ga anigu haysto dad adeegtaan waa 335 meg marka waa file aad u yar laakiin haddii imika Windows 10 ahaan lahaa oo kale ama Linux ama Windows server oo kale ahaan lahaa waxa laga yaabaa inuu waqtigu xoogaa qaadan lahaa sababtoo ah dhowr gig weeyaan file-kaasi waxaan rajeynayaa insha Allah taala inaad ka faa'iidaystaan casharkan fadlan dadka la wadaago share gare like subscribe insha Allah waana casharka dambe aynu ku duubi doonaa insha Allah taala operating systemka serverka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh